gaari laga soo buuxiyo walxaha qarxa ayaa barqanimadii maanta waxaa lagu qarxiyay isgooska sayidka ee magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada laga ilaaliyo ilinka madaxtooyada Soomaaliya taasi oo ah meel lagu hubiyo gaadiidka aadaya ilinka madaxtooyada Soomaaliya qaraxa ayaa waxa uu sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si rasmi ah ula hadlin warbaahinta marka laga reebo war-saxaafadeed ay ku faahfaahisay qaraxa waxyaabihii ka dhashay goobjoogayaal goobta ku sugnaay ayaa nala hadlay waxa ayna noo sheegay qasaaraha halkan ka dhashay wadada mooto bajaaj maraysa ayuu ku qaaday marka koowaad ciidanka soo buriyay marka xabaday ku rideen oo soo carar marka soo carar haas badrool markuu maray ninkii isqarxiyay wuxuu ku dhacay haas badrool irideeda gaariga wuxuu dhaxgalay bajaajada dhaxdooda ka dambe annagana waa ka cararnay ambaar kadib jug xoog leh ka dhacday meesha qasaaraha indhihi qabatan waxa kamid ah hal nin oo meesha yaalo meedkiisa arkay inta kalena waxa ay hanti gubato baabaaday bajaajada ma la saaray marka ka dhacay aamus marka soo dhigay bajaajada ma la saaray madad waa ka wada carartay dadku waa ka wada carareen hal mar ay ka wada carareen xabadii markay maqleen gaariga soo cararaay dadka meesha dhan way baneeyeen hal mar dhimasho dhaawac maxaa aragtay wallahi hadda indheey waxay qabtay hal nin oo dhaawac ahay ka damban meesha ku dhintay isla markiiba waya gaariga dhinaca ku yimid wuxuu ku yimid Makka al-Mukarram magaciisa waa Cali Umar Cabdi oo ku magac dheer Cali Waawe qarax koor maxaa asaasmay qarax koor gaariga soo cararaay askarta fashilisay rasaasa lagu furay ka damba jagboontiga xoog uu soo dhaafay isla markii wuxuu soo dhaxgalay birti koowaad madaxtooyada ninkii isqarxiyeen wuxuu ku dhacay agagaarka haas badrool irideedu yaalay ninkii dhaawac ahay ka dambana gaarigii markuu meesha dhaxgalay wuu qarxay gaariga isqarxiyay nuuciisa ma aragtay gaariga isqarxiyay nuuciisa wuxuu ahay nooha cad pulis korna waa ka fogay mooto bajaaj wadada maraysa ku dhacay kariya xabad ku bilaabay jabonta waa soo dhaaftay soo xabadina waa dhaabacay inta sarkay yarka darolka gaari wati kadib maxaa dhacay waa qaraxa inta ku dhacbis waya qarax kadib ana wax ma arkin waa carar markay waxa dhacay dadka wada joogno soo laga kala carar wees waa kala carareen dadkii gaari cadaay qasaaro maxaa aragtay qasaaro waa wax darolka dhaabace iyo markii dambe waa dhintay iyo waarsay ma la qabtay soo dhig muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay qaraxyada noocyadooda kala duwan iyadoona maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada lagu baahinayay fariimo degniina kuwaas oo la xiriiray inay Muqdisho ay ka dhici karaan qaraxyo deeq macallin Chino Cheki Sab TV Muqdisho